السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي والله كحنا نشرن كصومالي نتوي كلاسروم كسر هذا مر لبعض يمر صدق حد واحد نوسع امتحانين التكنولوجيا ده وأنا كجوري مني تقنية ده يو أرمى الله حديد علمي عن نتويكينك فيديو كوريا وحنبلنا قاعدنا يا ما عندنا application لايك وحنا كلا قايبنا ما دام في البداية هاي بارت 1 كي كانوا بارت 1 كي وحنا كجا وراناي application layerku muxuu yahay application layerka laga helaa application layerka protocolada ugu caansan ee laga dhaxlaa maxaa kamid ah marka ku cilo application layerku wuxuu ahaa layerka marka la joogo TCP IP modelka layerka afraad buu ahaa oo layerka ugu sareeya macna ka tahay iyo layerka toddoba marka la joogo inuu sameeyo modelka alma labada modelba layerka ugu sareeyan weey application waxa kale ka soo waranay application layerku inuu yahay layerka inoo saabxayna shirkad ku biirno applicationada si share iyo wordka noqda marka inta ka soo waxaan sheegnay application yahay layerka ugu badan layerka laga helo protocolada ugu badan ee network laga dhax yaqaan protocolada waxaan ugu caansan shan mid baan ka sheegnay FTP oo file transfer protocol ah iyo trivial file transfer protocol iyo hypertext transfer protocol iyo linki printer protocol LDP loo soo gaabinayay iyo DHCP oo dynamic host configuration protocol marka maadaama kan yahay qaybteeni labaad waxaan ku eegaynaa labadan protocol ayaan ku eegaynaa saddexda protocol oo part 2 gu weeyaan kii hore part 1 ha marka waxaan ka waraa saddexda protocol FTP TFTP iyo HTTP waa ka iyo kan iyo ka saddexdaas ku eegina video ka soo socdana labada kale saan ku dhameynaa tutorial-ka saddex ilaa waxa ku xigati waa tutorial 4 ma noqonayo haddaan ku soo dhawaano file transfer protocol maxaa tahay file transfer protocol maxaa tahay horta mara ku celiye markaan lahayn file transfer protocol ama leeyahay shanta protocol aan sheegino ee lagu leeyahay application layerka laga dhaxlaa horaan sheegnay macnaheedu waa maxay waxa ka dhigantay shanta protocol iskoodu istaakiri maayaan application bay loo u baahan yahay ugu shaqeeyaan inta waslifan hadda file transfer protocol maxaa tahay qodobada ugu muhiimsan waa afar shay inaad ka ogsoonatid insha Allah iyadoo mar baxsan kala baxsan ayaan insha Allah mar soo ka hadli doona laakiin imaka afar qodob ugu muhiimsan inaad ka ogsoonatid afar qodob koow ah file transfer protocol u dheeriyay si loo soo gaabiyo waxa loo soo gaabiyaa FTP hadad maqshin iyo file transfer protocol hadad maqshin isaymin waa isku macno qodobka ka yahay file transfer protocol kan maxaa loo adeegsadaa waa sahal file transfer oo FTP ah waxa loo adeegsadaa protocol kan in la isku weydaarsado large files meel ku qoran large fileada aad ka waaweyn between bayta loo soo gaabiyo device qalabyadu ama tusaale computer 1 sidoo computer 2 fiilasha aad ka waaweyn ee database-da ku jira si la isku weydaarsado oo computer 1 laga soo diro computer 2 ka timaado fiilasha aad ka soo waaweyn li protocol-ka inoo saabxayna isweydaarsano ayaa la yiraahdaa file transfer protocol oo mobiladaba waa laga helaa protocol-ka oo waxaad ka helaysaa waxaad ku qortaa ama aad ku arkaysaa protocol la yiraahdo file manager mobilkaaga ba ka dhaxreeya dad mobilka ay si file manager application la yiraahdo file manager kani waa waxa ku dhex jira protocol-kii loo oran jiray protocol-kii loo oran jiray isheegde FTP-ga ani markii loo sheegnay FTP-gu isku istaakir waa inuu application ku dhex shaqeeyo marka FTP-gu application ku dhex shaqeeyo ayaa file manager marka mobilka la joogo marka hadalka kooban file transfer protocol waa protocol-ka inoo saamaxa in computerada iyo qalabyada isweydaarsadaan bahalada aad ka waaweyn leh fiilasha aad ka waaweyn leh tusaale haddii markaas computer noo yaalo halkaana server noo yaalo si serverkaaga qodobka meel ku qoro si tusaale kan waa computerkaaga si computerkaaga kala soo degtid ii sheegday fiilad aad u waaweyn la file serverka Google leedahay protocol-ka adeegsanaysa ayaa la yiraahdaa large file ayaa la yiraahdaa FTP marka FTP waa protocol-ka ka mas'uulka in qalabyada isweydaarsadaan qalabyada noqdaan computer iyo computer ama mobile ama noqdo mobile iyo computer waxa doonaan noqdaan waxa la FTP hore soo sheegnay protocol walba wuxuu leeyahay port number u khaas ah laakiin se port number wax kala maaha ciwaan u khaas loogu soo agaago ayuu leeyahay marka FTP gu laba ciwaan buu leeyahay
laba ciwaan ayuu leeyahay labada ciwaan uu leeyahay ciwaanka number 20 uu leeyahay numberka 20 uu adeegsaa numberka 21aadna uu adeegsada say macna ka tahay waxay ka macna tahay hadaan tusaalayno si laba ciwaan uu adeegso waxay ka dhigantay haddii halkaan waxa noo yaala computer kan waa duu celiyo sawirka kan waa computer aan weyneeyo kan waa computer kan waa server tusaale kan waa maxay kan waa server ka weyn esta ku dhex qoray hadaba computer kan ayaa wuxuu rabaa inuu serverka inuu ka soo akhriso inuu ka soo qaato file weyn tusaale book dhameystiran oo 1024 page ama 3000 oo page oo volume dha ayuu rabaa inuu serverka ka soo qaato protocolku adeegsanay waa protocolka horta waa ila maadaama firish aad weyn protocolku adeegsanay waa FTP hadaba labada number sidoo adeegsanaya waxa la 20 ku for connection COVID-19 for data macnaha ka dhigantay si computer one u serverka iskugu sheego ay xidhiidh u wada san inta la xogta la dirin tusaale ma karantina qof ay wax ka soo qaadatid horta waxa ka horeysa inaad isbarataan ama xidhiidh wada yeelataan hado computerkani sidoo serverka qodobka meel ku qoran sidoo serverka xidhiidh wada yeeshaan port numberka uu adeegsado ayaa 20 ah marka caleego lagu leeyahay 20 for connection macnaheedu si inta aan xogta bal la isku dirin oo aanu serverkan computerka aanu serverka ka soo qaadan xog connection baa sameeyay port numberka connectionka lagu sameeyo waa number 20 marka connection kii la sameeyo uu computerka la doodo macaan failka ka soo qaata serverka uu si loogu soo diro datadii protocolka port numberka la adeegsanay waa COVID-19 marka 20 kale waxa loo adeegsadaa port numberka aan labaad waxa loo adeegsadaa for connection COVID-19 kana in waxa la isku diro oo for datadii la isku diro san dhowr jeer ka dhawaajinay FTP gu ma aha barnaamij isku taagan sida dadku wuxuu baahay application waxa kamid ah sidoo uu shaqeeyo application la file sela ama la Galaxy FTP ama la manager FTP ama la file manager ama la smart FTP waa sidoo uu shaqeeyo protocolka isku shaqeyn karma isagoo taagan arkiisa lagu leeyahay protocol waa ka FTP galka maraya sidoo uu shaqeeyo wuxuu baahay barnaamijyada waxa kamid ah Google ku qori karaysa oo la soo degi karaysa file sela iyo Galaxy FTP smart FTP file manager marka filtaas waa protocolka loo adeegsado in qalabyo isku idaarsadaan large files laba port address baa adeegsan port address 20 iyo port address COVID-19 20 wuxuu adeegsaa si computerka iyo serverku ay xiriir wada yeeshaan si computerka iyo serverku fariimo isku idaarsadaan ama xogta isku idaarsadaan datadina port numberka la adeegsada waa COVID-19 protocolka labada FTP ka waran la trivial file transfer protocol oo loo soo gaabiyo FTP in short form si gaab waxa lagu akhriyaa hadii maqashii TFTP hadii maqashii trivial file transfer protocol same waa isku macno TFTP ka maxaa loo adeegsadaa wuxuu kale waa protocolka loo adeegsado si la isku idaarsado short configuration files faylallada aad ka yar leh faylalsha aad ka yar leh ay leeyihiin routerada iyo qalabyada kala tusaale waxa la ogsoonahay routerka iyo qalabyada network noo yaala sida uu shaqeeyaan operating system bilay maxay leeyihiin operating system kooda waxa la iOS oo loo soo gaabiyo internet network operating system maraan ku celiyo waxa ogsoonataa qalab weyn oo shabakada ka dhex shaqeeya wuxuu leeyahay operating system meel ma ku qorato operating system ka qalabyadaas leeyihiin tusaale routerka operating system ku leeyahay waxa iOS oo loo soo gaabiyo internet network operating system internet network operating system ka uu ku shaqeeyo ma yaan dhihin aan ku celiyo mar waa khalad arinka qalabyada shabakada network interface kaagu waxa jira configuration lagu sameeyo tusaale hadaad SSL wuxuu ka dhigatay waxa artayda lagu sameeyo leeyahay routerkaaga magac loo bixinayo ama switchkaaga magac loo bixinayo ama password loo sameeyo routerkaaga password loo sameeyo ama iyadoo loo sameeyo board loo sameeyo adigu iyadoo configuration ama iyadoo fiilan lagu dhex sameeyo switchkaaga configurationada u fiirso configurationadaasi ma dhaw isku bedelaan faylal Soomaaliya wax faylku wax la faylal geliyo la bahaleeyay wax la diyaariyay Soomaaliya hadaba si faylasha ama configurationada routerkaaga lagu sameeyay ama mid kamid ah qalabyada si loo kaydiyo oo backup looga haysto protocolka inoo saamaxay la xifdiyo ala FTP maraan ku celiyo halka waxa inoo yaala tusaale wax lagu fahmay
halka waxaa noo yaala router baa inoo yaala, halka waxaa noo yaala router baa inoo yaala, halkana waxaa noo yaala server la yidhaha FTP TFTP oo loo sagaabiyo trivial TFTP serverka muxuu noo qabanayaa maadaama uu short waxay configurationada faylasha yaryar buu qabtaa. faylasha yaryar waxaa ka mid ah routerkaagan configurationaad samaysa fara badan. waxaa rabtaa configurationadaasi ila routerka marbu xumaan kale. tusaale haddaad maanta aad fiilaan routerkaaga haddaad ku samaysay ii sheegda protocol kala duwan iyo haddaad shayyo badan ku qortay oo lama gelin oo kusoo jeeday uu beri xumaado waa ka dambe sibsi weynaad isla arrinka ku samaysay isla weynaad configuration meel ku si aad configurationada mar aad backup uga haysatid ama copy uga haysatid serverka dhiganaysid ilaa waxa yaryar configurationada serverka lagu xareeyo ama protocolka inoo qaaday ala TFTP protocolka noo qaada maxaa la dhahdaa TFTP serverka la geenay TFTP server baa la dhahdaa. insha Allah siiseenada ayaad ku dhiganaysaa sida configurationada kuugu jira routerka ku samaysay sidee backup looga qaata oo TFTP serverka loo dhaxliga. marka TFTP hadalka kooban file transfer protocol FTP ga waxa loo adeegsanayay large fileska kana waxa loo adeegsanaa short configuration fileska faylasha ay ku jiraan configurationada aad ka yar yar hadalka kooban TFTP gu port numberku adeegsaa waa 69 ciwaankiisa hadda aragtay lagu dhahay TFTP port numberkiisa sheeg waa 69 badoona. TFTP gu maadaama ka mid yahay application layerska macnaheedu waxay ka mid tahay SQ ma istaago sida dadku wuxuu baahay applicationada sida bahalka la barnaamij kala ilaado ama program kala ilaado Open TFTP ayuu ku shaqeynaya. waxaan ku soo gudbinaa videogan protocolka saddexaad ee Hypertext Transfer Protocol loo soo gaabiyo HTTP. protocolkani muxuu noo qabtaa dan qaninkeena la soo baxo waxa loo soo gaabiyaa qaninkeena la soo baxno waxa loo soo gaabiyaa protocolkan HTTP hadad maqashay Hypertext Transfer Protocol is the same in wasku macno. protocolka waa protocolkii muxuu noo tara protocolka waxa weeye protocolkii inoo saamaxa inaan website-yada booqno. tusaale maad ma kartina website-kayga soo booqtay Somali Digital xajada Somali Network Classroom ama mid kamid ah website-yada aad taqaanid isla markiiba protocolka ku saamaxa inaad website-yada booqatid waxa la yiraahdaa HTTP abala akhir waxa English ku qoran waxa lagu yiri waxa loo adeegsadaa visiting in lagu booqdo the websites oo protocolka inoo saamaxa inaan booqano website-yada aan transmit inaan u gudbino website-yada hypermedia documentiyada hypermedia maxaa laga wadaa HTML ka tusaale website aad samaysay HTML baad ku samaysay oo qortay website-ka si aad internet-ka u geysid website jira uga dhigtay website-ka aad samaysay website jira la soo boqdo si aad u dhigtid protocolka la adeegsan ay HTTP ah marka laba midkood baa loo adeegsan inaad adigu website-ka aan lahayn aad booqatay ama website leeyahay booqo website aad samaysay si aad internet-ka u dhigtidna oo dadku soo booqdaana protocolka loo adeegsan HTTP marka laba shaqo leeyahay inaan website-yada ku booqano inaan website-da aan sameeyay internet-ka ku dhigna protocolka loo adeegsan ee la raada HTTP ga port numberka uu leeyahay waa 80 weeyaan wani ku leeyahay HTTP ga maadaama ka mid yahay application layerska application ma HTTP ga isku ma taagna sidoo uu shaqeeyo waxa loo baahan yahay adaan ku diiba kala qabtina website-ka booqatid waxaad adeegsataa ama Chrome baad adeegsataa ama waxaad adeegsataa Firefox ama Internet Explorer barnaamijyada ama programmada midkood ayaa internetka ku tagtaa internetka adoo saddexda ama waxyaalaha kale u dhigma aan adeegsan sida kilo dhan jiray mid baa jiray isagana kuwan kale la mid ah oo Chrome-ka waxa loo jiray waa jira adoo application waxay ka saaxayna internetka aad booqtay videoga inta ku soo koobnaa videoga ka xigo baarta 3 aan ka warami doono labada protocol ay noo soo haray LDP ga iyo DHCP ga inta ku kulun doona. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa